madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaana halkaas uu kula kulmay qalbi dhagax oo kala hore dawladda Soomaaliya ay u dhiibtay dalka Itoobiya. qalbi dhagax ayaa kulankaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu ku booqday goobta uu ku xiran yahay oo ah xabsi guri goob u eeg oo ay yaalaan fadhiyo casri ah. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sidoo kale toddobaad ka hor kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya ee la soo magacaabay Abiy Ahmed bishii hore ee Abriil waxayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid tahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. kulankan uu madaxweynaha Jubbaland la qaatay qalbi dhagax oo u muuqanayay mid ka jawaabaya su'aalaha shacabku ay qabeen oo ay ka mid tahay meesha uu ku xiran yahay qalbi dhagax inay shacabku la wadaagaan maamulka Jubbaland. waxaana booqashada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu booqday qalbi dhagax ayuu uga warramay xaaladiisa caafimaad oo uu sheegay inay aad u wanaagsan tahay. dawladda Soomaaliya ayaa dhibtay qalbi dhagax taas oo sababtay buuq ka yimid shacabka Soomaaliyeed oo ka falceliyay